nimanka guuxa hayo ee ka imaaday Garbahaare iyo Buurdhuubi iyo Luuq ka imaadayo haddaan nala xiriir nala darsaysaan walaal baan hee soo dhawaada waqti naloo taliyana waan soo dhaafnay haddaan nahay beesha kuumada wax badan baa lagu guuray wax badan baa leeyahay waa Soomaali wax badan baan daarood sheegnay maanta kuumadana hal la ogaado Jubbaland waan joognaa nin kale uma ogoon kuwan xunxunka qaa'imada YouTuberada iyo meelaha ka hadlaaya kulligoodba oo madaxweyne dani u weyn yahay kulligood afkay furteen marka hore hambalyo aan idinku hambaliyayna waxaad ka cabaadaysaan fiinow maxaad ka qaylibaale waxaan ka qayliyo gudcurka iyo roobabka iskala ka qayliyo waxaad ka cabaadaysaan ee tirada iyo tayada iyo aqoonta isa saarana dhab waay odayaasha dhaqanka ee beesha kuumade ayaa si weyn u cambaareeyay iyagoo warbaahinta la hor imaaday sidoo kalena sheegay in beelaha qaarkood ay dhaliilo u soo jeedinayaan kuwaasi oo ay sheegeen sida beesha Mareexaan oo kursiga Jubbaland ku loolamaysa ee hadda uu ku fadhiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo beesha Majeerteen oo sidoo kale kursiga ku haysata Xamse Cabdi Barre tani waqtigii xilkan ra'iisul wasaarnimo loo magacaabay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani ee Puntland waxa uu bilaabay abaabul gaar ah iyo in uu xiriirka u jaro Jubbaland iyo sidoo kale beesha kuumade odayaashan dhaqanka ayaa waxa ay si cad u sheegeen in beelahaas Mareexaan iyo Majeerteen taniyo dawladii Siyaad Barre kadib ay iyagu qaybsan jireen xilalka kala duwan ee madaxtinimo ee Soomaaliya balse hadda tani ay Xamse bilow u tahay beesha kuumade ayna noqon doonto mid joogto ah taniyo madaxtinimada hadday noqoto doorasho cod iyo qof ah in taniyo madaxtinimada ay qaadan doonaan beelaha kuumade odayaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in beesha Mareexaan ay ku handadayaan in kursiga Jubbaland ee Kismaayo ay xoog kula wareegi doonaan haddii kale ay xabadi shaqayn doonto taasi oo ay fasir dheer ka bixiyeen sidoo kalena ay sheegeen in haddii xabadi noqoto iyo haddii tartan noqotoba beesha kuumade aysan meel uga soconin Kismaayo sidoo kalena ay isdaalinayaan balse ay u roontahay inay heshiis la galaan nabadna ay deegaankaasi ku wada joogaan waxay sheegeen sidoo kale in Jubbaland aysan ahayn meel ciyaar iyo si fudud looga tagi karo ay tahay meel dhiig badan u soo daatay sidoo kalena dad badan oo beesha kuumadaha uu ku maqan yahay odayaasha beesha kuumade oo si weyn arrimahani u lafaguraya haddii ay idinku doonana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan waxaan rabaa Jubbaland inaan ka hadlo waxaa su'aal leh maxaa Jubbaland uga hadli Jubbaland kol hore waxaan ku yiri berigay nimanka ka imaaday Mooryaanta ee ka imaaday gobolada dhexe iyo ka xagga Jubbaland markii la qabsanayo magaalada Kismaayo waxaan sheegay gobol Kenya ka mid ah oo magaalada Gaarisa qayb ka mid ah inay tahay dadkii lahaana wuu imaqli meeluu joogabo xuduudka Jubbalandna waxaa laga soo bilaabaa 8 kiiloomitir oo magaalada Baardheer xagga ka ah meesha Sarin leeyahay inta ka sokayso yaa Jubbaland leh nimanka guuxa hayo ee ka imaaday Garbahaare iyo Buurdhuubi iyo Luuq ka imaadayo haddaan nala xiriir nala darsaysaan walaal baan hee soo dhawaada waqti naloo taliyana waan soo dhaafnay haddaan nahay beesha kuumada wax badan baa lagu guuray wax badan baa leeyahay waa Soomaali wax badan baan daarood sheegnay maanta kuumadana hal la ogaado Jubbaland waan joognaa nin kale uma ogolin laakiin ninkii lagu noolaan rabo waa deegaan fiican badweynta Indian Ocean baa ku taala Ethiopia xuduud la leedahay waxay xuduud la leedahay wadanka Kenya badda casayd bay ku taala webiga Jubba meeshu ka soo daada weey waa meel adduunka muhiim ah ninkii lagu noolaan hayo waan ku soo dhaweynaynaa ninkii inuu nagu xukumo rabo way dhamaatay waqti la xukumahay waxaan rabaa dadka reer Dhadhaab aan ku soo noqdo waxaa laga sheegay xan meelahan in ciidamo laga qori rabo yaa la ciidamada annaga dagaal baan ku jirnaa waxaan soo dhaweynay Soomaali oo geeska Afrika Soomaali oo dadka ka imaaday dadkii Djibouti ka imaaday ka imaaday Ethiopia kuwii Uganda ka imaaday kuwii Suudaan ka imaaday kuwii Zanzibar ka imaaday kullu intay marti noogu noqdeen
hubna maana qaadan ciidamana laana qorin maanta yaa naga maqan waxba nagama maqan jubbaland waa gobol annaga naga mid ah nabadgelyadiisaan ku dadaalaynaa xoog iyo xoolana wax alla wuxuu nabad ku ahaan lahaa waan isticmaalaynaa hal la ogaado waxaan u sheegi wiilka meelahan beecshirada yar intuu ka helay shilimaha la ordiyo jubbaland iyo gaarisba waan joognaa ogow dad la dhaxli karo min axmed dheerow waqtigaha iska dhumin waqtiga kula siman waxaa weeye adoo aamusan inaad xamar iyo nairobi dhexdooda ka shaqaysato oo lacag raadsato madaxnimo hadday tahay geeska Soomaalida qoyska ugu taariikh dheeraabaa tiiri 10 sano farmaajo ah madaxweyne iyo prime minister markii la isku daro siyaad barada 22 sano qoyska yar ee meesha jasiiradda ah shimbirahan hata waxay ku cunaan lahayn oo inta Soomaali hogaaminayay Jubbaland inuu maanta u haqaltaa koomadana uu joogo arintaa wax lagu samri kara ama la malaysan kara boo ilma adeeyarow nabadan ku wada joognaa ama kala joogno billahi tawfiiq warkii intaas waxaan rabaa Soomaali iyo reerkan aan walaalaha nahay daaroodan u horeyn reerkan aan walaalaha nahay daarood Ismaaciil aan isfahanno aan isbaranno isma naqaani aan isku baranaynaa laan dheerihiinni baan nahay aqoon-yahankiinni baan nahay dhaqaalayahankiinni baan nahay tayadiinni baan reer Soomaali ah oo geeska Afrika degan oo mag boqola iska bixin kara oo meel degan oo ceel iyo sumad la oo la yaqaan oo naan annagu deris iyo ood wadaag ahayn haddaan nahay kuumada ma jiro ciisaha u shisheeya iyo gaaljecelka raas kambooni jooga inta u dhaxaysa kolkii ilaahay tiisi intay soo martay oo madaxweynaha Soomaaliya aad iyo kun jeer buu mahadsan yahay ra'iisul wasaarana siiyay kuwan xunxunkee qaymada youtuberada iyo meelaha ka hadlahayo kulligoodba oo madaxweyne dani u weyn yahay kulligood afkay furteen marka hore hambalyo aan idinku hambalyoyna waxaad ka cabaadaysaan fiino maxaad ka qayliyay waxaan ka qayliyay buu gudcurka iyo roobabka iskala ka qayliyay waxaad ka cabaadaysaan ee tirada iyo tayada iyo aqoonta isa saarana dhab waay meeshaasaan u tagnay madaxweynaha Soomaaliya one man one vote markay gaadhana insha Allah annaga ahaan doon wixii Soomaaliya aan qayb u yeelana haddaan daarood Ismaaciil annaga u taagan wixii maanta laga bilaabo intaas qaata ra'iisul wasaaruhu xaq weeye shaqooyinkii loo idmadayna wuu hayaa qaylada iyo propagandada iyo si xun u fikirka hal laga daayo cod dheer baan saa ku leh madaxweynaha Soomaaliya waxaan leeyahay waad mahadsanta waxaad ku jirtaan dagaal argagixisaad la diriraysaan wadanka Soomaaliya la degtay nin allaala ninkii idan mucaarada hadduu baarlamaan yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu madaxweyne goboleed yahay inta ka dhaxle waa nin al-shabaab la shaqaynhayo Soomaali inay intaa fahantaan rabaa daaroodna waxaan rabaa inuu fahmo tiradii iyo tayadii iyo wixii baan isku darsan awal hore waxaan col la ahaan jiroon isaynay dawladaha deriska sidii Itoobiya iyo Kenya aan ka hadlayno waxaasaad noogu soo gaban jirteen kuwii waxaad ogaataan heshiis baan la galay walaalaan la naay isku siyaasad baan isku danbaan fahmaynta annaga dhaxdaanaduna col baan ahaan jiray waan heshiinay waxaan intaasoo heshiisa u qaadanoon u soo qaadan inaan xukunno Soomaaliya tiradii iyo tayadii iyo aqoontiina waan leeyahay soo dhawaada marka sidaa raalli ku aadan nugulana shaqeey daarood waan la shaqayn jiray intii dawladda siyaad barre ay burburtay saddex ra'iisul wasaaruhu harti qaatay waan la shaqaynay si dadnimo leh nimankan la dhaho mareexana saddex ra'iisul wasaare iyo madaxweyne qaatay waan la shaqaynay hartina saddex ra'iisul wasaare iyo madaxweyne qaatay waan la shaqaynay war nala shaqeeyo wariya dad nala shaqayn weydaan qoqobka aad saarantii mancuun qabatay idinku saaray xaqiiqadu saawa waxaa jira wiilal loo yaraa oo intay meelahan xoogaa ka heleen awal annaga sharciga nagu qaateen
beryahan deedna si xun guux iyo gebgeb iyo shirqabaso guuxooda ka dheeraynhayo war hooy taariikhda aydan qori doonta waxaad tihiin iyo tabartiinnana waad arki doontaa war tartiib warya tartiib nolosha aad haysataan tartiib ku jira jubbaland ma dubin kartaan soomaaliyana ma dubin kartaan waxna ma qaban kartaan intaanaan idan soo dhowrin oo indhaha guumaysta aanaan idinku arkin aada u dadaala oo soos u socda danihiinna iyo ganacsigiinna iyo nabaddiinna haysta haddaad weydaan sharcigaa laydinka qaadi doona waana laydin xaydhin doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudaha Kenya ciidan ka abaabuli kara oo ku wajahan Axmed Madoobi iyo ninka meesha la yiraahdo Kismaayo ku wajahan mucaarad ku ah ma jiro hajira meesha waxaan ka soo marnayna waan ognahay muddo dheer bay nagu qaadatay ninka wax oo Ilaahay isaga ku guuleeyay buu qabtay adduunkana dawlad waa loo kala dambeeyaa in intii wax la mucaarado lagu dumiyo horay baan u soo marnay oo la eedo wax mucaarado lagu duminayo ma jiro ninkii tartan la galaya oo tartan la garab istaagaya oo wood kaga qaadaya hay al falaax iyo waqtigeeda weey laakiin wax la yiraahdo xabad iyo hujuun iyo dagaal lagaga qaado meesha anagu aan joogno marna ma dhacayso meel kale oo lagaga soo qaadayna ma ogolaanayno meeshaas taariikh fog bay leedahay Jubbaland maalinkii Unisom timid Ali Sokor bay weydiisay aaway bay Ali Sokor dadkiisi maalinkii waxa weeye ay baar dheer tageenna oo was qorana dadkiisi aaway bay tiri ninka xubin adigu aad leedahay haysta xubintii ku hadhayna ku qamaamaya ninkaasoo waxaan leenahay daris baan nahay nabad aan ahaano nabadgelyo aan ku wada joogno haddaad nabadgelyada ku joogo weydood col rabtana col dhibaatadiisa aan weli ku soo marin col dhibkiisa waad arki doontaa annagu waxaan kuugu baaqaynaa nabad darisnimo wada jir meesha waxa weeye amni baan u rabnaa dadka caytamaya Ethiopia ka imaaday oo ma wadanka ma laho oo waxyaabaha saas aan meediyaha kama maqlayno warka waxa weeye war aan ku faraxsanahay ma aha waxa weeye nabad baan ku joognaaye nabad inoo daaya haddii nabad la waayo waqtigeeda la is arki doonaa Jubbaland waxa weeye waxaan u rabnaa nabad Jubbaland waxaan u rabnaa deganaansho Jubbaland waxaan u rabnaa waqtigeeda inay gaadho Jubbaland waxaan u rabnaa dadkeeda inuu daris ahaado si kastaba haatee waayadii u dambeysay waxaa soo tarayay cabashooyin xooggan oo ka jira Jubbaland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kuwaas oo Xamse Cabdi Barre ay u soo jeedinayaan dhaliilo kala duwan sida qaybaha YouTuberada ee ka soo jeeda gobolkaasi Puntland oo ku tilmaamaya eraya xunxun oo ka dhanha oo markaasi uusan u qalmin iyadoo ay markii dambe gaartay heer ra'iisul wasaaraha uu gobay ka soo tiriyo kuwaasi dhaliilsan ama sida xun u qaadanaya hadalladiisa sidoo kale Jubbaland ayaa waxaa ka jira isbahaysiyo cusub oo markaasi la rabo in xilka laga qaado madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam kaasi oo ay sheegeen in muddaxileedkiisii uu gabagaba yahay balse waxaasoo dhan waxaa beeniyay odayaasha beesha kuumade waxayna sheegeen in dagaal iyo sidoo kale siyaasadba hadda ay bilow tahay Axmed Garaad warbaahinta Sahal TV Nairobi